wasiirkii hore ee wasaaradda kheyraadka iyo biyaha Somaliland ayaa waxa uu madaxweyne Muuse Biixi ku dhaliilay inuusan daacad ka ahayn wadahadalada u dhaxeeya Somaliland iyo maamulka Khaatumo. Cabdiraxiin Axmed Mahdi ayaa warbixintan inoo soo diray. باشا علي جامع وزير كهر وزارة خيرات كبيها سوماليلان ومانتا قيبة كميدا ورباهنتا كلها اللي مقالة هرقيسا أيا وحو مركي وقوه الرئيسي كعضلي وضا هذا اللذا ودحيا سوماليلان يمامو الكخاطمو وحانو حكومة مدحوين موسى بيحي كرداليلاي إناي كمارانتي وضا هذا اللذا سي واسدا وهذا الكودقاي والله وضا هذا اللذا خاطمو يقوى كهرية وعربوغيس الوقبتي بواترين wada hadallada ilaa hadda la isuma soo hor fariisan waxa ahayd in details loo galo oo wixii lagu heshiiyay fulintooda iyo cid qabato dawladii horena iyagoo qabiyaha ka tagtay mana ay fulin hadeerna anigu meel waxaan filayaa inaan cid u jeeda aanay jirin وهذا ودود الدولة وحيسعنا هين بمدي بهالشيء بان مرينا يا وقوة دجالة يو تكرر يو وحاب العبي مركو على سليه ولا هذا الله مهم بيودن كوا هاين كوي هراي كوي خاتم بابا على خليفة كل دوا مقيه مقالنا يمشوا لقي ولا هذا الله لكن سنسان كل حكومة العصوب كم مقضى وحنا مرينا هنا كم عرنتين maruu telefishinka RTN weydiiyay saami qaybsiga ay ka heleen xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi deegaanada uu ka soo jeedo bal sida uu arko waxaana uu hoosta ka xariiqay inaanay xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi ka helin saamigoodii balse ay ka heleen qax iyo dhibaato waa sida uu hadalka u dhigay saamigan aad buu uga yaryahay kii hore munaasibteeduna aad bay uga liitaan jagooyinkan uu magacaabay ee kale agaasimayaasha waxaana wax kaga jira maanan maqal hal nin baan maqlaan maleynaa marka annaga saamiga waxa nooga daran in wada hadal la galo wax fara badan baaba naga maqano waxaanu filaynaa dawladdan inay annaga si gaar ah maadaama Somaliland hore annaga iyo barantoona waxba kamid ahayn iska magacyal mooyaan waxaanu filaynaa inay wada hadal nala gasho oo ay waxayso laakiin wadadeedii ma hayso waxa laga yaabaa saamiga dadkii uu hore wuxuu haystay baa loo sii korkorniyay saasay de kulli aniga ila muuqata dhinacayaga wax qiimo leh oo ay ka leedahay annaga talaabada qule la qaaday waa in dad la qixiyay oo madadan oo baabacsanaato karaq la qixiyay oo dhibaato badan loo geystay ummad oo dad fara badan oo hay'adaha caalamka wax siin jireen ay maanta ku gaajisay dawladda tukaraq iyo agagaarkeeda iyo dhinaca dagaalka lagu qaaday annaga talaabada qule naga soo gaadhay waa qax iyo dhibaato iska daa wax kordhe gabagabadii baasha cali jaamac waxa uu isdul taagay mashruuci biyo ballaarinta xunba weyne oo gabi ahaanba istaagay mashruuca biyaha waa laba mashruuca xunba weyne muddo hore ayaa mashruucan la bilaabay ilaa waqtigii dawladda Riyaale waxa meesha laga qoday ceelal fara badan oo dhowr iyo 10 warkan imanka wasiirku sheegay uu leeyahay